بريبان بيالبان ورورنا وحن سيديكولها ديجان كهالكنات بالهرمر كهرجيس جالسيسان وحنا لو أركين قولين كادول كاسدا على الشيطان كان نجسوري إيدول بالقادر يا داسون بابريجان الليدي سمرك الله يجنا ورثانا كبريجان لجمة دوران لكن ما أنت عبد الكريم يقولي سنو وجامني والله دورته وحنا دي أدو مهنق يا وسيرك وسارد وحبرشة وأنا صاحب دوا الله شوقي مركي دورشة اللي جايو dhammaan mitirkan oo dhan u fudeydiyay gudiyadii doorashooyinka iskuuladii u amray ama Soomaaliland oo dhan wada amray runtii taasi waxay keentay in maanta inteedaas oo mas'uuliyiin oo ku soo wada jeeda deegaanka aanu runtii aanu sameeyno inaanu maanta idii wada nimaadno oo maanta horumarka aanu taariikhda ka mid noqono horuu dastuurku siiyay sida Maxamed Yuusuf sheegay digreeto wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday baa runtii waxaanu maanta u nahay waa marxaati maalintii ay halkaasi ku biirasay Hargeysa maalintii horumarka ballaaran u bilaabmay looga warwari maayo maanta Cabdikariin waxaanu ku barbar taaganahay Cabdikariin caasimadii weyneed baad hore u dhaqaajisay Soomaalida waa ku dhibnin meel joogin nin ka dambeeyo wanaajiyay inuu yiraahdo war waad sii wanaajisay waxa la yahay in xaasidkii nagu yar farabatay baa la moodaa runtii oo dadkii ay xaasid yar dhex galay war ninka waxa fiican qabtay ka dambeeyo waa lagu hambaliyeeyaa nimayahow lama xaasido maanta inanka uga baqmaysaan ninba halka taagnaa wuxuu yiri warar Cabdikariin iyo qoladiina deegaanku ma waxay doonayaan dawladdiina oo soo ku wada socotaan dhul ilaahay ka baqbaan ku yiri kii hore Hargeysa xidhane sidoo Cabdikariin uu mu xidhay buu wali xidhay isaga dawladda dhaxo xidhay nin maanta halka wax ku falaya ma nin wixii qabanaya weey inta Cabdikariin iyo waxa la gooliisa waxa ay raacda kaftakiin adeerkayeen warde madaxweynaha hadaad beelaha uga abaatay isagu aad waxa nooga qabto wax ka soo qaad horta ceelka shidaalkaas ay idigu horeynaya tolkay waxa leeyahay laamida halkaas la idin sameeyay dawladda hoose inta u badan sameeyso wala mida ceelka shidaalka baxna ma lagu tagiyo ayaa horta la helo sameeynaya MCHK iyo waxa uu Cabdikariin ku daray kala dhamo wanaagsanina waa halka dadka ku soo dhaweynaysa in aynu reebno tamaamkii Sacuudiga iyo gadar yaaynu ku noqonayna horta dadkaynu soo dhaweynayna madaxweynahaasina waa ninaynu abtuunahay ragga marka dambe dooranayna ka koobaynunay waxa dadka oo dhimi isku dilaya bari dhaweedoon Sacuudiga tagnoon madaxweyne ku xigeenka la socday ayaanu u tagnay al-Jaabiriga arigeena iibsada nimba meel buu u macsuumayo si wanaagsan buu noo soo dhaweeyo noo macsuumayo markuu noo macsuumay buu nimba meel ku dhuftay nin Suudaan iyo safiirka Suudaan Sacuudi Arabiya u joogo meesha fadhiya ayaa aad ugu faanay arigoodii markuu dhameeyay baan anigu hadalkii gacanta taagay waxa ku yiri dawladda Sacuudiga noo maqlaysaa Suudaan noo maqlaysaa annagu waxaan u haysanaaba Suudaan arigeedu ma madax madooba sida Kenya markaasaan ku dhaarnaga kaayaga madax madoob dagaalkii labaad adduunku ka dhacay waxa arigaaga maalayso kaayaga madax madoob dagaalkii ka dhaco kaasoo bal Jaabiri leen dadkayga qiimaha u kordhi al-Jaabiriyo ka qiimaha u kordhi imika caalamku wuxuu isku wada haystaa waa shidaal ruushka ayaa waa ka war haystaan iyo reer galbeed shidaal bay isku haystaan kiiba horta bahadna ma laga helay saxab iyo soo dhaweynaya alla mahadnaqayno horta ku soo dhaweyno madaxweynaha inuu sheeginaano waa ka shidaalka inoo soo saaraya shalay baa ogeedeenoo Taiwan baa la heshiisay Somaliland warbaal ka milkiis iyo sharaftiisa diyaar baynuunay Somaliland kalena waxbaynu ka siinaynaa Soomaa inaguna waynu ku dhirgeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh